السلام الله عليكم ورحمة الله. كلنتي wanaagsan mar kale saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan. Halkani waa Mustafa Show, aniguna waa Mustafa. Ku soo dhawaada taxana cusub oo lagu magacaabo Johoradii Geeska. Waxa qoray saaxiibkay Cabdifitaax Xasan Maxamed Barawani. haddaba qaybteeda koobaad ee sheekadan jacaylka ah oo runtii murugo jacayl iyo warwar intaba xambaarsan barwaaqa soorana la dhex gali doono haddii aad ka hesho si aan u ogaano inaad ka heshay qaybaha labaadna aanu kugu soo dadejino isku day inaad la wadaagto saaxiibka like-na aad barnaamijka saarto. sheekadan jacaylka ah ee uu qoray Cabdifitaax Xasan Maxamed waxa ay ku bilaamaysaa goorfiida cadceedu kolkaasuna ay godka ku xarootay fallaaraha cirku guduudka ay ka dhigayaan ay weli sii muuqdaan layr macaan oo aad muddo sidii saxan roob inta ay dhulka maashaysay lamaha dhirtu ay kolba dhinac u ruxmayaan shimbiraha saaka hirti waa bari ka soo hayaamay badda xeeligeeda ayaa had deegaanka korkiisa maraya kuna luuqaynaya codad ashqaraar dartii diihaalkii maanta ku ilowsiinaya dabeecadda aan weli indhuhu hore u qabanin baa dacal isku xidhantay gashaantimaha iyo doobabka isu liishaaminaya ee gudcurka isu sugaya waxaa la maaneeya faraka ciyaarka dhowcilaha deegaanka bilicdasan ee kolba gacanta ku dhufanaya horaadada geegsan ee aan weli la jeedin misana soo taagtaagan laydha fudud ee hablaha deegaanka adhaxda ka gelaysa dabadeedna garayska ka yara fududaysa ama ka fududaynaysa doobabka ilqoodha ku xadaya horaadada midkoodba dhanka bidix ka muuqdo duqayda iyo waayeelka da'da ah misana aan awood iyo itaal aan weli gabin ee garhka guduudsaday hooyooyinka badarka iyo buushka kala haadinaya ee heesaha quudka quluubta ku madadaalinaya caraaba oo lagu naanayso Johoradii Geeska waa gabadh u dhalay boqortooyo waa gabadh ka dhalatay boqortooyo uun alle u talisa waa curada boqor baasa weyne waxa ay ku jiiftaa leexo ku xidhan geed baxar saaf ah oo qasrigooda dhexdiisa ku yaala caraabo oo isku laxaysan leexada hareeraheedana ay la taagan yihiin khudaar tira beeshay oo kala jaad ah waxa la maaneeya shaqaale aan tira lahayn ee u heelan dharaar kasta koob kasta xilli kasta mid u maydha mid u feedha mid u saliidaysa mid u daluugta jirka mid u heesta mid u xinaysa mid gasiinka u samaysa iyo mid milicda waxa ay ka harsan lahayd u sida mid huga u maydha iyo mid u geejisa huga iyo kumanaan kale oo midba shaqo gaar ah ay u hayso caraabo waa gabadha timo dheer oo jilicsan leh oo aan madoobayn aan casayna isku dhex jir aad moodo in xinnaha iyo sibaaqa lagu barxay qoorteeda dhuuban dhererkeeda xigeenka ah indhaheeda kibirka iyo jacaylku buuxiyey suuniyaha qarsoon sanka bagafsan ee haddana dhuuban ee waxoogaaga yar dheer waxa raaca dhabanada godan daamamka aan aadka u kuuskuusanayn haddana hilibka uu ku jiro ee khudaarta iyo gasiinka boqortooyada ay ka cunaysay ay nafaqeeyeen laabteeda la siman garbaheeda isku miisaaman naasaha ibtooda toosan tahay ama ay soo taagtaagan yihiin isku dhow haddana aan isku dheganayn raadinaya gacmo aad u daliiga dhexdeeda madagta ah ee dhuuban ee kolka ay ciyaarayso aad moodo in aan lafiba ku dhex jirin miskaha isu suran aan haddana aadka u waaweynayn aan aadka u waaweynayn indhuhu waa ilaash qaraarayaan boodiheeda hilibka iyo buurnaanta isku dhufan ee luxmaya dhaqaaqa iyo socodka jiidaya ee dhalaalaya misana isku jaango-an ee aan la kala soocin ayaa cabbaar kolkii ay isku laxaysay leexadii roob aan badnayn uu soo daatay shaqaalihii iyada u shaqaynayay badankoodu waa ay carareen oo dhanka iyo meel ay roobka ka galaan ama ay ka jirsadaan ayay u carareen intii dhowrkii hareeraheeda fadhiyey ayay ku tidhi iska taga keligay ayaa halkan joogaye gabdhihii waa ay ka wada tageen kulligood keligeed ayaa geedkii leexada saarnayd ku soo hadhay oo aan uun alle wehelin ama keligeeda caraaba wixii dhibcaha roobku uga soo dusaan geedkii ay ku leexaysanaysay waxaa mar keliya bilaabmay roob mahiigaan ah waxay ku naxday hanqadhka iyo hilaaca dhacaya dabadeed waa ay soo carartay dhiiqadii bay ku dhex kuftay ruugga bidix ayaa mudhay oo diirku uu ka qaadmay way oyday ilaan waa gashaanti aan weligeed in yarna aanay soo gaadhin kuwo ka mida shaqaalaheedii ayaa ku soo orday oo kiciyey dabadeedna qasriga kolkii ay geeyeen waa loo qubeeyey si wanaagsan baana ruuggii mudhaxay loogu dhayay oo dhir daawo ah ayaa loo mariyey dhakhtar dhaqameedkii qasriga ayaa ka shaqeeyey ama daweeyey caraaba hu ay isku dado ayaa loo keenay gasiin
diiranna waa loo sameeyey intii dab ay kulaasho oo qandhada ka baabiya loo soo siday ayaa gacan diiran garabkeeda meel ka bannaanaatay la saaray waa ay dareentay gacan kulayl oo naxariisi ka muuqato in la saaray way naxday waayo ayay tidhi marna niyadda ayay ka leedahay jannadan lagu saaray talow maxay ahayd looma warcelin talow waayo ma shaqaalihiibaa ma dababkii qasriga baladba Johoradii Geeska ama caraaba waa ay naxday dabadeedna waxa ay damacday inay soo jeesato oo indhaheeda bal ay ku aragto gacantan qabow ee jannada mooday cidda saartay halkaasi haynoo joogto qaybta koobaad ee taxanaheennii Johoradda oo aad ka daawanayseen Mustafa Show anigoo Mustafayna aan idinla socodsiinayay waxaa qoray Cabdifataax Xasan Maxamed Barawani haddaba qaybta labaad intaynu gaadhayno waxaan rajaynayaa inaad la wadaagi doonto saaxiibada si ay qayb ugula noqdaan dhegeysiga sheekada